marka hore waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo madaxweynaha falkii xumaa oo tacadiga ahaa oo runtii lagu bahdilay ee lagu sameeyay dorra markii heshiis lagu galay xabad joojin oo odayaashiisa dhaqanka saraakiil beesha caalamka wadamada aan saaxiibaha nahay ay ku qanciyeen in xabad joojin la sameeyo madaxweynahana uusan sameyn banaanbixi uu gurigiisa halkan ugu soo noqdo xaqiiqatan isbaaradaas loo dhigtay waxay qaadatay muddo 3 saac ku dhow oo bahdilka ah oo la falxumeeyay oo runtii la gaarsiiyay meel aad iyo aad u hooseysa sharafkiisii sumcadiisii heybadiisii wax loo dhimay loogu talagalay in laga reebto wax alla wixii ciidan ahaa iyo wax alla wixii qalab ahaa uu haystay oo isku ilaalinay oo isagoo kaligiisa oo halkaas ka soo tago alxamdulillah shaqo badan kadib si sharaf leh gurigiisa ugu soo noqday waxa ka horeysay maalintii ka sii horeysay doraad muddo 20 saacadood yaa waxa lagu dagaalamay hubkii cadawga loogu talagalay oo noocyadiisa kala duwan ah haday tahay beebeeyo haday tahay madaafiic haday tahay dhashiikayaal nooc walba oo kala duwan oo ciidanku ay isticmaalaan waxa loola dagaalamay sidii cadawgii oo kale waxa loogu talagalay in halkaas lagu dilo ama marka uu sahlan tahay lagu waxyeelayo wuxuu galabsaday marka madaxweyne Sheekh Shariif waa la yaqaanaa waa madaxweynihii dalkan ka bixiyay kumeel gaarka waa madaxweynihii shabaab kula dagaalamay halkan anoo prime minister u ah aniga isagoo wada shaqeynayna yaan magaaladan ka xoreynay shabaab oo ka xoreynay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose si nabada yaa xasan sheekh maxamuud loogu wareejiyay xilka iyadoo loo nadiifiyay magaaladan saad ogteen magaaladan shabaab yaa nus haysatay duruuftaas adag iyadoo la soo maray dadaalkaas badan iyadoo la soo maray doorashadii lagu qabtay magaalada dhexdeeda iyadoo dibadda laga keenay oo lagu soo dhaweeyay xasan sheekh maxamuud ma istaahilaan madaxweynihii intaas sameeyay inuu naftiisa khatar geliyo